يعني إن أرنكان صفر سميسن لوغا هادلو أيضا لإلالين آيو وذا هذا لذا كجيرا سومالي سوماليا إيو وذا هذا سيدي أسعان لهايين سي أيسن أيغا لفسدو دو أركين أرن أيغا لورد الليه وانا أرن صح هواي وحول بأنا ما دام مسؤولية أن هاين وإنان يعني قف كستو سوماليا درين كوان أكسن أو قوينا لو ذا هذا ناديك قوامي إن أجندها وكسي جرو قوان كينوها أيها لوكم ماسين أديك لوكم ماسنتين وعارنا مركنا أسلا فهمنا أرين كاني أو أرين حساسي أواي ما دام وكيل كتيه شعب الصوماليات شعب الصومالي ذاتكي مثل أين أدينك آتيهين وإن أغادان أركتدين يفهم كين يماشا أتكجوكتان يعني مسؤولية دا أدينك أتوقاتين وأرين كان ما أهمت داد لوغو دارين يهي أو داد لوغو حمين آيو ما أهمت داد لوغو رونان آيو وعارما هنا فهمنا أرين كان إنو يهي أرين مسيري oo taabanaya siyaadada shacabka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed annagu cidna kuma xumeynayno dawladna kuma xumeynay laakiin waxa aan ka hadlayno waa annaga sharciyadaanada iyo siyaadadaanada ayaan ka turjumaynaa taas marka ma aha mid aan dad ama dawlad ama hay'ad ama shirkad ama wakiil aan oognahay cidna annaga wakiil noogama aha dalkeena annaga wakiilka haddaan mathali waayno waxaa laga yaabaa in bahasha la yidhaahdo in la siyaasadeeyo la yidhaahdo arrintan waxaa laga leeyahay siyaasad arrin siyaasad laga leeyahay ma aha qarannimadeeda siyaasadeeda annagaa mas-uulka ah marka waa inaan fahamno waxa intaad u soo gasheen ood wakiil ka tihiin waa shacabka Soomaaliyeed waxa dhibaaya inaad ka jawaabtaan adinkaa idinka raba دولة وهم الدرنين دولتكم محمينين ضدكم محمينين لكن دناها أنك واي وحن كهذا مركا عدنا ليه كرت دنيه إن محد أوجه الله يسان مجرد عدي ترى هذا أنا كمان مقلين ودناها أنك أنا مستحد أنا سكست طبعا أهان حالة كست أنكو سجنام قلبي أنك إني دارنا ذا ونول يهاي وسوت تاجيه ما دماني وده كان أنت أنكو سويجرني وألوكتهين dhibaato kasta oo lala soo aado intaas dad un baa ka hadlaya dad un baa ka jawaabaya waxaan rabaa inaan idiin sheego xeerkan oo guddoomiyaha inta ka akhriyay waxaa waaya dhaxal dhowrkii labaad waay haddaad ogtihiin dhaxal dhowrkii labaad waay meeshaan waxaan ka ansixinay baddii Soomaaliyeed ood ogtihiin waxaan meeshaan ka soo saarnay sharci ama xeer dhahaya dhaxal dhowr muxuu ahaa dhaxal dhowr waxa aan maanta haysana waa waxa dhulkeena korsaane iyo waxa dhulkeena gudihiisa ku jira waay kaas waay waxa la ilaalinayo yaa loo ilaalina waxa loo ilaalinaya kuwa hadda jooga iyo kuwa imaan doona kumanaanka sane oo dambe waxa loo ilaalinaya kaas waay waa dhaxal ummadda Soomaaliyeed ay leedahay oo la ilaalinayo mashruucan dhaxal dhowrkii labaad waay waa ogtiin xildhibaano badan og dhaxal dhowrkii hore oo inta ku sameeyay عارفنا مركي إن أوجاتان وجددا مشروع على الله كاره وقد يجوت هذا كذا هذلي هذين كالذين صوبني قد يجوت قان أنتو إسك جارسة إسك مفولي سبب الله كاني وأن أرجني بحد أيلاده هاي يشعب كسومر الماش عرض وضع مرة يسو ما دام أنا عندك كترجمة أنا شعبك إن أوجادان قاله هذا شعبك إن أيهين كود دفاع دنا هذا يا مستحدود مدن على مروين وعرب أنا ورك يقصوا كابا دنا الله مدن لها إن لولا مجد أنا وما أنا شيئين مال قار ما أنا شيئين وأركيسن وعين تلقى آخرنا وجيج الصومالية قدامه شركة دان أنت ما قاعد تلقى آخرية هذا عيد كستر وأوقتها
xaaladeeda wadamada laga soo eriyay waa ogtihiin mid iyo laba iyo saddex iyo afar ma ah maanta inay tiraahdo dowladda Soomaaliya ma aqoonsanin waxaan rabnaa samaynaynaa waxaan filayaa qof kasta oo damiir uu ku jiro Soomaalinimo ay ku jirto inaysan qaadan karin arrinka asaga ah awood darro kasta iyo tabar kasta ha hayse mudanaale marweyn adinkoo mahadsan waa mahadsantihiin sida Soomaalinimada ay ku jirto wadannimada ay ku jirto ay ku dheehan tahay ay shucuurtiina iyo cabirkiina aad u soo jeediseen waa idinkaga mahadcelinaynaa wax kasta oo yimaado oo ku saabsan qaranka Soomaaliyeed qofna yaan looga danaynin qofna yaan looga baqin qofna yaan looga xishoonin qaranka Soomaaliyeed qof male hal male laba male saddex male kan dhintay kan nool kan imaan doona iskale مسؤوليتنا أمام الله إن أذنك إذن هرسان تمام سنتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.